dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada qalabka sida ay diyaar u yihiin inay mustaqbalka ka howlgalaan magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera si loo xaqiijiyo ilaalinta midnimada madax-bannaanida ee wadajirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Midowga Afrika Cabdullaahi Warfaa ayaa wareysi u siiyay warbaahinta Al Jazeera Media Network ku sheegay in Somaliland ay tahay qayb ka mid ah Soomaaliya oo aan la goyn karin, isagoo adkeeyay موقفka dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan ilaalinta midnimada dalka. Danjiraha ayaa xusay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay difaaca midnimada dowladda dalka, isla markaana ay sii wadi doonto dadaalada lagu xoojinayo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Hadalkan ayaa imaanaya xilli ay weli taagan yihiin doodaha iyo khilaafaadka siyaasadeed ee la xiriira mustaqbalka Somaliland iyo xiriirka kala dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya. asalka khilaafka u dhaxeeya Muqdisho iyo Hargeysa waxa uu dib ugu laabanayaa burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1991 kadib markii la riday taliskii Siyaad Barre, isla markaasna Somaliland waxa ay ku dhawaaqday inay dib ula soo noqotay madax-bannaanideedii ay lahayd ka hor midowgii ay la gashay Soomaaliya 1960 tan iyo xilligaas. Somaliland waxay maamuleysay deegaanadeeda halka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku adkeysanayso in Somaliland ay weli tahay qayb ka mid ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa mar badan ku celisay in arrimaha la xiriira masiirka Somaliland lagu xalin karo wadahadal siyaasadeed iyo is-afgarad Soomaaliyeed, iyadoo ku adkeysanaysa in Soomaaliya ay tahay hal dal oo leh midnimo dhuleed oo aan la kala qaybin karin. Ilaa hadda ma jirto wax jawaab rasmi ah oo arrintan kaga timid maamulka Somaliland, hase yeeshee hadalkan ayaa la filayaa inuu dhalin karo falcelin siyaasadeed oo ballaaran, maadaama uu ku soo beegmayo xilli ay jiraan dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed iyo wadahadallo ku saabsan mustaqbalka xiriirka u dhaxeeya Muqdisho iyo Hargeysa. Danjiraha Soomaaliya Warfaa ayaa wareysi uu siiyay warbaahinta Al Jazeera uga hadlay arrimo kala duwan, isagoona si gaar ah uga hadlay arrinta Somaliland ayaa waxay haatan isku haysataa inay tahay maamul ka madax bannaan guud ahaanba Soomaaliya. Sidoo kale dhawaan waxa ay ku dhawaaqday inay aqoonsatay maamulka Yuhuudda ee Israa'iil ee dhibaatada ba'an ku haya shacabka Falastiiniga. Muddooyinkii la soo dhaafay Soomaaliya sidoo kale Somaliland waxaa ka dhex jirtay xiisad diblomaasiyadeed oo aad u culus kadib markii Somaliland ay sheegtay in la aqoonsaday. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay sameysay diblomaasiyad aad u xooggan, taasoo ay ku guuleysatay in Somaliland aan loo aqoonsan karin dal madax bannaan. Sidoo kalena dalalka adduunka ay badankooda ay aqoonsan yihiin in Somaliland ay tahay qayb ka mid ah Soomaaliya, balse Somaliland ayaa waxa ay mar walba sheegtaa in cadowga ugu weyn ee adduunka uu yahay Soomaaliya, maadaama ay sheegto inay tahay maamul madax bannaan horeyna ay uga go'day Soomaaliya. Dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda ugu sareysa ee dowladda ayaa waxa ay mar walba sheegaan in Somaliland ay tahay qayb ka mid ah Soomaaliya, sidoo kalena wax walbana lagu xalin karo wada hadal.